يقرأ هذا كل ويقرأ أنا كسر نقضي وحن عاد ولا هضيع وأنا مرة والبعض ولا هضيع وأنا لا هضيع dadka Facebook yada ka caaya gobolka Daadmare war gobolka Daadmare ma aha gobol caad qaatay ala gobol lacag qaata ma aha laakiin waa gobol sharaftii milgaha u dhashay anagu hadoonay balweynta degta gobolka Daadmare gobol aad u baaxad weyn weeye sidaad ka war haysaan waxa weeye de Muuse Biixi oo ah inaan soo dhaweyno goobta lagu yaqaan anaga sharafteeda ma aha oo dad guna ma nihin inaanu runtii madaxweyne yimi Somaliland gobolka Doonaha ka soo jeedo inaanu si midgale oo sharaf leh u soo dhaweyno qurux badan aniga fikrigayga dadka meelaha naga caayay leh reer Daadmare baa sidaan oo reer Daadmare baa war maaha anagu mucaarad baan nahay hadaan gobolka Daadmare nahay hamoodinina inaan muxaafad nahay mucaarad baan nahay laakiin waxaan ka hadlayaa oo aan sheegaya oo aan leeyahay ilmaada reeyal sida yara qaldan ha u hadlina Muuse waxa weeye soo doonaa ku soo baxo maanta saa horta waddanka madaxweynaha inagu taas waxba ka sheegmeen laakiin anagu waxaan ka hadlayaa in anagu gobonnimadan u dhalanay ayuu man ka hadlay anu arrimo siyaasadeed kama hadlayo laakiin goobtaan nahay gobbaan nahay reer Daadmare waa gob dhashay ma garatay dadka qaar baa waxa u yaqaanaan in gobolka Daadmare badal baanto kaliya ay degto habeeniyo soo dhanba degta habeeniyonis oo dhan ayaa degta de aan ku yara badnaano kala xagga badnaashiyaha waan la oranaya laakiin waxaan dilayaa war aynu caayda iyo aflagaadada aynu dadka madaxdeena eg ninka caaqilkii shalay warbixinta sheegaya gobolka Daadmare wuxuu doonaa noqdo amba muxaafad iyo mucaarad labada waa la noqon karaa anu ma oran karo laakiin in cayd iyo aflagaadada midaya anaguna hadaan nahay gobolka Daadmare oo aan ku soo celcelinayo gobolka iyagu wuxuu dhashay u yaqaanaa shalay markii ayga caalanka lagu xidhay xisbiga wadani ee gabilay ku xidhay anaguna waxaan roog casbaan Muuse Biixi u dhignay maantana Muuse Biixi caani geel baan ku soo dhaweynay si sharaf leh milgalan oo soo dhaweynay gobolkii Libaxyada oo soo dhaweynay marka waxaan oran lahaa Muuse waa in abtiina loo yahay waa nimka waddanka haysta marka waxaan oran lahayn inagu mucaaradnimadeena aan sheegnay inagu shaqeynayno aynu haddana qarnimadana ka shaqeyno taas waa iga talo qaar badan baa kale imika ay oranaya oranakii daahir cabdi bulcaws baa soo dhibay yaa eeg warniyo in xukuumadda lala shaqeeyaa oo de runtii wixii qaldan loo sheegaa waa muhiim hadda xukuumaddu qaadan weyday iyada taas u taala laakiin wixii qaldan loo sheegaa muhiim laakiin anigu waxaan imika u soo galay inaan siyaasad ka hadlayno ma doonayo siyaasadda sideedaba anigu waan ka yara gaabsaday laakiin waxaan doonayaa ka hadlo gobolka iyaga Daadmare inay uu yahay gobol u dhashay sharafta karaamada wanaaga runtii soo dhaweynta martida intaba aad baan asxaabta qaaliga sharafta leh u salaamaya dhamaantiin waxaan leeyahay waxaan dirajada bashashii barwaaqo halo salaam alaykum halo salaam alaykum halo salaam alaykum aad baan waxaan qofkaan soo qabtay aad baan salaamaya waxaan idin leeyahay oo aad iyo aad soo dhaweynaya mar walba in ay bartii sharaftii iyo milgihii iyo wanaagii ay lahaayeen reer Daadmare ay bartii ka sii wadaan war siyaasadeennii iyo mucaaradnimadeena waa barteedii laakiin gun iyo gobnimo gob iyo gun baa loo kala dhashay gun iyo gob baa loo kala dhashay waxaan halkaa aan aad uga salaamaya asxaabta sharafta leh soo gashay waan leeyahay dhamaantiinba waan soo dhaweynayaa sultan soo dhawaada baan dilayahay soo dhawaada soo dhawaada aan dilayahay dhamaantiinba akhyaarta Asiya Ahmed waxaan ka soo daahan saxaaxi Asiya Ahmed soo dhawaada dhamaantiinba maadarada qaaliga sharafta leh aashaha xibaan ka
ان أنا أقول كلي سيدان دي شيء والله يجا وأنا دي شيء إن قفكي قلدو قادنيا سي jirtaa u qaato laakiin anigu waxaan ka hadlayaan u soo galay leefka inaynu gobolka Daadmareen aan hadaan nahay gobolka Daadmareen dhalinyaradii gobolka Daadmareen hadaan nahay aad baan ugu faraxsanahay sida madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo caaqilada iyo dhalinyarada iyo waayeelka iyo haweenka gobolka Daadmareen u soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliland sharaftana waa laynagu yaqaano inagu dad guna منهن شالي بينو أوجين وحول بعد وين كور هينا لكن وحوي هذا ندك شرفته يملكها يقرحها ووكل رشة إن وجري يعني ما كده ما كا درفتي سكالو قاعد كرا لكن ما حلا يعني ورينا عقل دينا يسلادين تنا في القادين ورخير والبس سودانية عقل بوليه سودان كوسيدن فكر وكل دوين وبلا آدم وكل فرد دوين فرنسا مين قفك بلان كلا فكر بعد نقول كرتان ما كذا ترى سكو فكروا ما نقولنا أنا أقول بكا تبون معارضان كنتي من أفلق هذول من عايتمي لكن واحد كده ذليا سيدان بري كرسيكا وعبد الرحمن محمد عبد الله غيره وفول لا ده يلا سي شرف له واحترام له والله حيو والله سعيديه والله سودوينيه إنه برينا كرسي وفولا لكن واحد عندك قعد صلى دمان أصحاب تقاليد شرفت له والله وري ماذا عيدي يا أفلقادة إسكدين بليز عيد يا أفلقادة نجدايا حمانتي نجدايا وحوية أينو يقفلوا بالهدف كاجيه ملضا هذا جو حسب معارضة كسوتشي معارض يوم محافظ قرن كوالو هذا ليه فهمتي سينو كور هينو السياسة دو وكل دونان كرتها وأنا لك الفكر دونان كرها لكن قرن ماذا اللي قوم كل دونان رجال سياسيين تاريخ هبين يجا صحيبة يجا وذشوجا بالشدن كنت يوحويان سياسيين تايني يعني دان كل حمل من سياسة هريا هبين ولا وذشوجا هريا هبين هذا لا شراب جيشة على جود عبية إنك يعني ورقف الله بدأ أنت هذا يا رماك أنت تراعده وقف كتاجر سنة تاجر أي يفلقد أنا إسكرب أفلقد دي عيد وحما ترته لكن وحم ترى إن أتقف كي فكر قدرته مشرح حاجي إن أدركتي قدرته إن أروح هذا قدرته إن أدخنتي قدرته وحي مسكح كوكول كورين كرته أم بكوك بعين كرته أم بروحنتي وشيء كرته أم بروحنتي وقبان كرته إن أدخنتي وشكتي يا قف بدن إن أنا جو عادي عاد وحنا جوهم بلياني قبل كتورير وحنا عادي عاد يسمع جوهم بلياني قبل كان كسر كذا ضاد بعدين قبل كان كسر كذا ضاد بعدين كنتي سأ شيء قبل كلمة بحية وقبل كشرفتي من جاه يروح ولا شيء إن السلام عليكم ألو إن marka waxaan aad iyo aad aan dirjinaya kulay khadka iyaga culus dad badan baa isku garaacaya oo arkaya oo aan ka qabo laakiin waxa iga culus xagga khadka daraadi marka anigu waxaan diran lahaa aan ku soo gabagabeynaya hadal oo aan idin leeyahay warcayda iyo aflagaadada hal jooji warcayda iyo aflagaadada way naga reeban tahay waxa weeye anigu taan soo galayna waa tan cayda ku arkay gobolka Daadmareen la caayo dad badan oo gobolka Daadmareen aflagaadeynaya ayaan bartaan soo galay war gobolka Daadmareen ma gun noqdaa leeyahay gun mu dhalan gobolka Daadmareen gobo dhashay waxaan xukuumadana runtii aan leenahay ummadaada cabashadeeda inaad dhegeysto adeegyo in markuu qof hadal yiraahdo qof kale ka jawaabo madaxda qurux maaha runtii madaxda waxaan leeyahay adiguna haddaad marka dhaliishaadii lagu sheego haddaad adiguna jawaab ka daba keento halaga yaro qurxinaya laakiin waxaa quruxda ku jirtaa inaad u jawaabto walaalkaaga runtii wuxuu ka cabanaya inaad ka jawaab saarto haddaad tahay madax waayde madaxnimada waxaa loo doorto qofka bini'aadanka inuu runtii bulshadan wax u qabto inuu runtii bulshadan wixii uu runtii ay tabanayeen baahiyadooda aasaasiga sidaan ka warhayno magaalada Hargeysa marka runtii waxa weeye biyo la'aan baa jirta fara badan oo laga cabanayo waxaa jirta wadooyinkii runtii waliba degmada Axmed Dhagax Maxamuud Haybiye wadooyinka aad u jajaban xaafadahaasi ku yaalaan marka dawladda hoose waxaan leenahay waxa ka qabato dawladda hoose inay dhan ka rarnaato waa laga qurux badan yahay dawladda hoose waxaan leenahay bal xaafad walba baahideeda aasaasiga inay u eegto ila xaafad walba cashuur baa laga gurayaa ayaan anigu taana talahan dawladda hoose iyo maamulka dawladda hoose siinaya oo taas waa fikirkayga
inaynu kala fikir duwanaano waa wax bulshada ku dhex jirta waana muhiim qasab maaha inaynu isku wada fikir noqonnaa laakiin anigu fikirkayga aragtidayda waxaan ka hadlaya oon leeyahay oo balcabashada dowladda hoose loo soo gudbiyey waddooyin hadday tahay xaafadooyinka ku dhex yaalla hadday tahay waxa weeye inay dowladda hoose ay wax ka qabato oo xildhibaan walba deegaan laga soo doortay oo runtii degmadiisa laga soo doortay wax qabad uu ku celiyo taasi waa taa aad baan idin salaamaya dhammaantiinba السلام عليكم سودو ولا خدك يجرى عنص وعندك قبل الله خدك يجرى عنص اي ما